صلحوا عليه nolosheedii حala suurone jaceylkaaga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا الدعوة ديال سود وهذا ومركل يا ولالكن هذا كرامة هدي أي تايمر كوجو رئيسي هذا نصاب وقت تفضل سبسكرايب تاين لارد عفيني إنه بشرف هدي هورين ولا شوكتينا هذه عاد بعض ما سنتاي واحد كم تايم الكلياش channelka waxaan ka codsanayaa markaasi in aad like sii saartaan muuqaalka si uu u baaho oo u gaadho bulsho tiro badan. Maslaxa Saalax haaskii hore ee Catoshira ayaa markii ugu horeysay soo bandhigtay jacaylkeeda cusub iyadoo oo markaas iska soo duubtay muuqaal ay aad u faraxsan tahay isla markaana uu kala soo muuqday wiil dhalinyaro ah oo ilaa hadda aan xogtiisa shakhsiga ah cidina haynin. Maslaxa Saalax iyo wiilka dhalinyarada ah ayaa si weyn isugu halcelinayay ereyada jacaylka ah ee dhiigga uu ka da'ayo ayagoo markaasi muujinayay in uu ka dhaxeeyo xidhiidh qoto dheer. Lama oga in xidhiidhkan uu haatan bilownay iyo inuu hore u jiray toona, balse dhowaan ayay ahayd markii Catoshira uu afka furtay isla markaana uu sheegay in ay tahay Maslaxa weli xaaskiisa isla markaasna uusan furin. Waxa uu Catoshira sidoo kale sheegay markaasi in nabadoonkeeda iyo nabadoonkiisu ay ku jiraan xalinta khilaafkooda labadooduna ay ogyihiin xaaladooda iyo in aysan weli isfuranayn isqabaan. Maslaxa Saalax ayaa horraantii toddobaadkan waxa ay shaacisay markii ay kala hadheen Catoshira in uu markaasi furay oo ay tahay gabadh madax bannaan. Laakiin diinta Islaamka ayaa waxa ay sheegaysaa in gabadhu inta ay ciidada ka baxayso aysan shukaansan karin nin kale, taasi oo iyadana ku noqonaysa dambi weyn iyo arrin ay cambaare weyn kala kulmayso Maslaxo maadaama si weyn ay bulshada Soomaaliyeed u taageereen kadib qaabkii ay ku kala tageen iyada iyo Catoshira inkastoo Catoshira weli sheegayo in ay markaasi isqabaan. Xaaladda qoyskan ayaa si weyn u galgashay baraha bulshada maadaama ay yihiin laba qof oo si weyn looga yaqaanay baraha bulshada isla markaana muuqaal ku soo gudbin jiray barta Durdur Media ee uu iska leeyahay ninka la yiraahdo Xasan Toob oo lagu eedeeyay in uu si fool xun loo dhaqmo markaasi shaqaalaha ka hoos shaqeynaya. Arrinta keentay in markaasi ay xaaladdu faraha ka baxdo ayaa waxa ay ahayd markii Xasan Toob uu muuqaal aad u qaab daran oo anshaxa ka baxsan uu ku qasbay in markaasi Maslaxa duubto isla markaana soo galiyo barta YouTube-ka Durdur Media. Maslaxa ayaana waxa ay ku eedeysay Xasan Toob inuu markaasi jidhkeeda ka ganacsanayay oo uu ku dhaqaajinayay barta YouTube-ka ku leeyahay Durdur Media iyadoo markaasi uu isha ka eegayo Catoshira oo raalli ka ahaa muuqaalka anshax xumada ah ee laga duubayay inkastoo iyadu ay diiday balse uu Xasan Toob ku qasbay kadib markii hooyadeed la hadlay oo ku yiri gabadhaadu ma aha mid diyaar u ah markaasi inay shaqayso. Xaaladda qoyskan ayaa haatan ah mid cirka isku sii shareeraysa maadaama uu dhowaan Catoshira oo ka soo muuqday warbaahinta uu ku goodiyay inaanu ninna u dhowaan karin markaasi Maslaxo maadaama uu ku sheegay inay weli xaaskiisa tahay isla markaana aysan jirin meel uu ku furay. صلحوا عليه nolosheedii حala suurone jaceylkaaga waa walaalkan aadan karaama haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqato fadlan subscribe tahay la dhaafin ugu sharaf isla markaana riix gambaraalka cas si ay ku soo gaaraan dhacdooyinka iyo muuqaalada xiisaha leh ee kala duwan ee halka soo galino. haddii aad horey noola joogtay aad iyo aad dabcan u mahadsan tahay waxaan kaa codsanaynaa markaas inaad muuqaalka like sii saarto si uu u baaho oo u gaadho bulsho tiro badan tan iyo muuqaalka mid lamid ah intaan ugu kulmino. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.